asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax oo aad ka daawanaysaan astaan t v bogga youtube-ka ee codka ubax sidoo kalena aad ka dhageysanaysaan adeega bodcastka waxa aan maanta la sheekaysan doonaa abwaan axmed cismaan batuun waa saxaafadda kusoo jiray muddo 20 sano imika waa sugayahan sugaanta sameeyo abwaana heesa badan sameeyey maansooyin badan oo arrimaha bulshada ka hadlaya sameeyey sidoo kale waxa uu barnaamijka caafimaadka ka sii daayaa radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka sidoo kale waxa laga yaabaa in codkiisu ka dheereeyo muuqaalkiisa waayo wacyigelinaha caafimaad ee telefoonada lagu duubo ayuu inta badan uu sameeyaa waxa laga yaabaa kii u dambeeyey ee dadku xasuustaan inuu ahaa kii corona fariin caafimaad waa Axmed Cismaan Batuun Axmed kusoo dhawow codka ubax Ismaaciil waad mahadsan tahay oon salaamaya dhammaan bahda codka ubax podcast-ka YouTube channel-ka iyo guud ahaan warbaahinta kala duwan ee codka ubax sidoo kale Astaan TV iyagana waad mahadsantiin baan leeyahay waanan dhawahay warbaahinta dhinaceed kaga jirta Axmed warbaahinta waxaan kaga jiraa kaalinta wacyigelinta ayaan u badanahay saxaafaddu dee waa sidan ay hay-adaha dowladda ama hay-adaha madaxa bannaan adeeg bixiyayaal u yihiin ayay warbaahintuna adeeg u qabataa bulshada way isku xidhaa waxay isku xidhaa dowladaha bulshada geesaha nolosha dhan bay isugu xidhaa dadka marka waxaan yar dareemay in saxaafaddu u yar janjeedho xagga saxaafadda xagga aan idhaahda ee siyaasadda dabadeetana waxaan ka fekeray bal tutaa ka duwan oo iyaduna isla siyaasadii uun laakiin kaalintii waxtarkeedu uu ka muhiimsanaa xataa siyaasadii waa in dadkii lagu wacyigeliyo habkii loogu shaqaynayay iyo sidii la isugu dooranayay sidii la isugu raacayay ayay wacyigelintii tiir u tahay markaa taasaan ku doortay waxaad ka shaqaysaa dhanka caafimaadka caafimaadka laftiisa maxaad ku dooratay runtii waa sheeko dheer anigu markii aan dugsiga hoose dhexe ka baxay waxaan ka fikiri jiray anigoo yar in aan noqdo shaqaale caafimaad inkasta oo laygu tiriyo ama aan isku tiriyo dadka caloosha jilicsan ee had iyo jeer caafimaadku dee waxa weeyaan adeeg u baahan in qof calooda ka shaqeeyo waan jeclaa caafimaadka sidoo kale saxaafaddana waan jeclaa laakiin marnaba igumay soo dhici jirin in labadooda aan isla heli karo oo anigoo saxafiya aan caafimaadkana ka shaqayn karo sidii baan dugsi sare kaga baxay dabadeetana waxaan kala doortay labadoodii caafimaadkii saxaafaddii 2003 baan dugsiga sare ka baxay waxaan go'aan ku gaadhay inaan markaa warbaahinta oo aan isla way ka fududahay malaha caafimaadkii aan u shaqo tago radio Hargeysa 2003 ka bilaabay shaqada waqtigaa waxaa wasiirka warfaafinta ahaa Cabdulaahi Maxamed Ducaale oo nool imika u jooga ilaahay khayr badan ha siiye kana mid ahaa dadkii fududeeyay warbaahinta ku soo biiro radio Hargeysa markaan ka bilaabay tababarka on job training-ka lagu siinayay meesha oo ay joogaan farsamo yaqaanadii iyo shaqaalihii wax soo baray in badan oo kamidihii in badan oo tiirar ahayd oo Allah u naxariistay Xasan Jaamac Aabi oo kamid ahaana ay geeriyootay sidii baan ku noqday farsamo yaqaan buuxa oo radio Hargeysa ka shaqeeya haddana waxaan ku daray inaan anoo farsamo yaqaan oo wariye noqdo markan tii ku daray ayaan haddana ay ugu dhalatay mar haddaan saxafi buuxa noqday oo muddana ka shaqeynayay radio Hargeysa oo ay aragnimo igu filan aan helay in aan caafimaadkiina ku kordhiyo agaasimihii waqtigaa joogay radio Hargeysa oo ahaa Siciid Aadan Cige oo isna imika joogo oo nool ayaa arrintaasna ila fududeeyay muddo dhowr iyo 10 sano markaas saasaan imika saxafi arrimaha caafimaadka oo kaliya ka shaqeeya aanu ahay muddo intaa ka badan inaan ka shaqeeyaa dhici kartaba waayo qofku wuxuu ku raaxaystaa waxa uu jecel yahay kuma koobni taasoo kaliya oo dee shaqooyinkayga kale iyo nolol maalmeedkayga kale iyo waxyaalaha kale aan qabsanayo waan qabsadaa laakiin maadaama aan jeclahay oo laba mihnadood oo aan jecelahay ay isugu yimaadeen kuna sharfanahay oo dadku igu tixgeliyaan aad baan ugu raaxaystaa inaan ka shaqeeyo waanan ku qanacsanahay
waanan ka mahad celinayaa cid kasta oo arrintaa gacan iga siisay waqtigii aan ku cusbaa warbaahinta runtii waddanku sidan mu ahayn jiilkii markaa aan ugu yimi fiilka laftiisu ama mihnada lafteedu yani intan imika la haysta lama haysanin 12 sano 20 sano ku dhawaad bay ahayd dhaqaalaha waddanku xataa sidan ma ahayn isgaarsiintu sidan ma ahayn meel fiican baynu maanta wax ku wadnaa marka aad muddo intaa leeg aad ka shaqaynayso arrimaha caafimaadka maalin walbana aad barnaamij ka samaynayso arrin caafimaad adiga laftaadu doctor yar miyaad iska noqonin waa su'aal muhiima horta cilmiga caafimaadku wuu ka duwan yahay wax kasta oo kale oo la barta aniga aragtidayda yani wax qiyaaso lagu samayn karo ama figures aan scientific ahayn la sheegi karo horta maaha sidoo kale wax intaad ku dhawaato ku yar siqda dabeetana aad iska dhexgeli kartana maaha naf ibni aadan baa meesha ku jirta khamaar iyo siyaro muhmala inaad u dhex gashay marnaba imika ayaan gacanta ku hayaa inaan degree public health ah sameeyo laakiin de waa aragnimo badan waan ka faa'iiday khibrad badan baan ka helay waxyaalo badan baa iigu fududaaday aragtiyo kala duwan oo aan ka aaminsanaa aqoonta caafimaadka ayay wax iska bedeleen laakiin marnaba ma odhan karo dee shaqaalihi caafimaadkaad ku dhawaatay ma odhan karo muddo waxaad ka shaqaynaysay 20 sanadooda ayaad ka shaqaynaysay warbaahinta 20 sannadood dee dhacdooyin baa kula kulmaya ya maraad ku cusub tahay maraad khibrad leedahay maraad barnaamijyo live tabinayso waxyaabii kaala soo kulmay maxaa ka mid ah wallahi way fara badanayaan 20 sannadood cimri yar ma aha dhalinyar baan ahaa waqtigaan ku biiray warbaahinta aad u da'yar kolley maantana aabaan ahay oo carruurteydii dugsiyada sare ku jiraan xusuusta ibni aadamkuna marba waxbay lumisaa warbaahintiya waxna way ka hawl badan tahay ama way ka xusuus yar tahay waxyaalaha kale ee laga shaqeeyo oo qof dee hadal daba socda ayaa tahay qof hadal ka shaqaynayaana ma hawl yara xagga doorashada haddaan ku yar noqdo waxyaalaha shaqooyinka la qabto ama nolosha qofku intuu nool yahay waxyaalaha uu faraha u fiiqo wax ajar keliya laga helaa waxna ajar iyo lacag baa laga helaa waxna ajar iyo lacag iyo sharaf baa laga helaa waxna intaa midnaba lagama helo markaad bulshadaadii oo dan yar u badan oo dad aqoonta ku yar tahay u badan oo reer guuraa ah oo aan adeegyadii loogu talagalay wada helin ah arkayso waxa ku damqaysa waddanka waa loo soo halgamay waa loo soo dagaalamay dad baa dhiigoodii u bixiyey dad baa maalkoodii u bixiyey adu maxaad ku tartay waxyaalaha doorashadeeda saldhigga waabay ka mid ahayd anoo shakhsi oo nool waxaa la yidhi waddankaagu wuxuu kuu qaban karo iyo waxaad u qaban kartaa labaduba waa su-aal soo maaha bal adoo shakhsi ah maxaad ku contribute ama ku tari kartaa dadkaaga su-aashaad weydiinaysaa ahayd wacyigelinta waxyaalahaad ku dooratay horta taasaa saldhig u ahayd dhacdooyinka iga soo maray haddaba warbaahinta ama caafimaadka intan health and journalismka ku jiray ha noqoto ama ha noqoto warbaahinta caadiga ahbe way fara badan yihiin waxyaalahan aadka u xasuusto waxaa ka mid a xilligii uu madaxweynaha ahaa mudane daahir riyaale kaahin madaxweynaheenii hore ayaa maalin maalmaha ka mida anigoo aan weliba shiftiga shaqada ku jirin maalintaa oo si madax bannaan suuqa u jooga ayaa maamulkii wasaaraddu ila soo hadleen shir jaraa'id oo ay qabanayeen wasiiro xukuumadda ka tirsan baa la ii diray dabadeetana shirkii jaraa'id baan tegey waan soo duubay gaadiidku markaa jimcay haydoo gaadiidka wasaaraddu may xilligaa heegan ahayn bas baan markaa soo raacay si aan warkii uga gaadhsiiyo baskiibaa waxaa igaga soo dhex lumay rikoorkii runtii dayac may ahayn laakiin waxaan dannisanahay telefoonnadan yaryare kuwan la salaaxaa may jirin markaas lagu hadlo ayaa sidan iminka loo kala qaado ama loo kala xado kuwa waaweyn ayaa berigaa loo kala qaadan jiray waxaan isir markaa toloma qof baa mobil mooday telefoonkii qof baa mobil u qaatay rikoorkii labada wasiir codkooda ku jiray oo idaacaddiina ay sugayso ayaa markan meeshii tegay aan iska waayey
waa dhacdo aad yani u adag iyadoo ay jimco tahay oo aanay warar badaniba jirin oo maamulkii idaacadda ku soo diray inaad weydo codadkii mas-uuliyiin dowladda ka tirsan nasiib wanaag waxaan ahay mar kasta qof qalin iyo warqad ama qalin iyo buug yaroo wax ku qorto meel kastuu tegaya sita waxay caawiyey nowtkii intay wasiiradu hadlayeen aan sameeyey dabadeetana waanan fahmay ujeedada shirkooda jirayd tiibaa ay caawisay dabeetana waxaan qoray wixii ay meesha ka yidhaahdeen runtii su-aalo weygaga soo noqdeen maamulka idaacadda oo waa lay weydiiyey xagee codkii tegey laakiin siday ahayd baan u sheegay dee meel laga baxaa ma jirto markii koowaad warkii sidiibu ku baxay markii dambena inaan kamid ahaa inamada u shaqeeya telefishinada madaxa bannaan ayaan la xidhiiday warkii uu kamarada tvgooda ugu duubay buu cod iga soo sameeyey kiibaan warkii labaad ka samaystay dhacdooyinkii ugu yaraa ayay kamid ahayd naxdinta badnaa barnaamijyada livekaad qabato ama aad soo qabanaysay muddooyinka dheer iyaga maxaa kala kulmay barnaamijyada liveka horta dee imika barnaamijka recordingka ah ee la duubayo ee kan imka aynu ku jirno oo kale kamida haddaynu imka isku xanaaqno waa la joojinaya deetana hadhow waa laga jaraya ma fahamti laakiin barnaamijka liveka khaladka kaa dhacaa ciddii ku daawanaysa wuu u muuqdaa ciddii ku dhegeysanaysana wuu u muuqdaa weliba si sahlan bay dadkaa ku daawanayaan oo u kaydsan karaan xilligaa laftiisa dabadeetana mushkilad buu kugu noqonaya horta taxadirkiisa number 1 waxyaalaha ugu waaweyn in markasta anteenadaadu taagnaato aad u taxadirto teeda kale markaad qof telefishin ka hadlaya ama idaacad ka hadlaya tahay bulshaa kugu xidhan waxaa laga yaabaa mas-uulkan aad wareysanayso qof ku kacsanay inuu kula soo hadlaba oo uu qofkii iska galo oo caayo moogti way dhici karaysaa dee waxaa laga yaabaa mid caashaqsanay inuu soo galo oo deetana ammaan dabada u qabto qofka laftiisii khajilo oo uu besna odhan kari waayo dadkina way daawanayaan soo hadda maad fahmin dad waxaa jira ku hambabera ama markaa ku baraaruga barnaamijka socda dabeetana nasiib u yeeshay in telefoonku intuu halabsado markaa soo galo waxay dhibaata kaa qabsanaysaa inaad qofkii u sheegto waxaad ka hadlayseen dabeetana inta badan waxaad ku celcelinaysaa walaalayaal intiina nagu soo biirtay waxaasaanu ka hadlaynay dhakhtarkii oo ka hadlaya tusaale ahaan timaha ama indhaha ayuu cirbaha soo weydiinaya soo maad fahmin kolkaa dhibaatooyinka barnaamijyada livekii leeyihiin bay kamid tahay 20 sano markaad ku jirtay warbaahinta meeshii aad ka soo bilowday warbaahintii aad soo gashay sidii ay ahayd iyo maanta 20 sano kadib sida ay tahay farqi inta lag baa u dhaxeeya miyay wanaagsanaatay kala mise hoos baa u dhacday ma xagga qalabka iyo isgaarsiinta iyo mise mihnada iyo mihnadlaha qalabka iyo isgaarsiinta iyo maxaa la dhahdaa adeegyada aad baynu uga horumarnay laakiin qiyamkeenu 100 sanadood buu dib u noqday marka saxaafadda laga hadlayo runta in laga indhaqarsado maaha saxaafadda qofna lagama xigo anu kamid baan ahay adu kamid baa tahay inamada waxay naga duubayaa waa kamid siday u waramayeen intayada dhalinyarta ah ee imika wax ka warantaa kuwaanu ugu nimid siday u waramayeen uma warana ilaahay bayna dilayay waa lala kala saftaa mid xagga xukuumadda ka soo jeesta mid xagga xisbiyada mucaaridka ka soo jeesta mid reere ka soo jeesta ku dadka isku dira ku maxay sameeya qof kasta inuu ogaado baa fiican in intan aynu la kala safanayno ay Soomaaliland ku dhisan tahay waa arintan isu soo dhaweey iyaga runta u kala sheeg warka dadka dhibaya ee mushkiladda ah ee dadka isku gubaya ee dadka kala kaxaynaya ee dadka kala fogeynaya qofna ha ka yeelin inaad ka qaado waxa kale oo waxaasba ka daran isticmaalkii baraha bulshada ayaa warbaahintii ku soo biiray saxafigii telefishinkii wuxuu adeegsanayaa aragtidiisii tii adeerkii ama dowladda ha ku jiro ama mucaarid ha ahaadee iyo tii qofka saqajaanka ah ee isna suuqa jooga intiibaa dabadeetana bulshadii iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo qurba joogtii wadankan dhaqaalaha ku bixinaya waxa badan gashaday warkoodii u tegaya waxa u qaadanaya in Soomaaliland lagu kala tagay wax sa jira maaha waar qof kastoo inaga midahow ama saxafi haw ama ka saxafiga ku xidhan haw ama xisbi lahaw ama dawlad ka tirsanow waxa doonto sheego taytalka doonto lahaw maalin maalmaha kamida unba halkan inta laga qaado marayaro cad lagu duubaya halkaynu garanayna lagu geynaya waar waxaad gudbinayso ilaahay kaga baqo waar waxaad gudbinayso
intaad ilaahay kaga baqato wax ummadda wax taraya oo dadka wax taraya oo isu soo dhaweynaya oo dadka aan kala fogeynayn oon isku dilayn oon kala dirayn oon niyad jabinaynin ummadda u sheega iyadoon sidaa u ognahay in dee ay saameyn taban ay ku leedahay bulshadii iyo isku xidhkeedii haddana warbaahinaha jira dalka iyo kuwa cusubee bilaabmaya 9.9% baa la odhan karaa dhammaantood siyaasadday ka hadlaan weliba sidanaad sheegaysa ee aan wanaagsanayn baa looga hadlaa waa maxay waxa soo jiidanaya dadka ee dhanka ay ugu kacayaan wax soo jiidanaya oo gaar ah aniga ii muuqda horta ma jiraan aragtidayda siyaasadda dad baa ku cindan soo maaha dad baa siyaasadda inooga wakiila waa xisbiyada waa ururada waa xukuumadda waa baarlamaanada waa golayaasha deegaanka waa aduu inta siyaasadda ehelka u ah intaas ayay u adeegaan saxaafadda siyaasadda ka shaqaysaa uma adeegaan islaanta baligubadla joogta uma adeegaan odayga ceelaf weyn jooga u baahan in fariin caafimaad loo gudbiyo uma adeegaan inanta quljeed joogta ee u baahan in fariin la gaadhsiiyo ku saabsan caafimaadkeeda ku saabsan waxbarashadeeda warna uma hayaan waxaanay ka sheekaynayaan afarta tiifiyada daawada ee magaalooyinka waaweyn jooga iyo in qurba joogahoo kuwaa ku xidhan oo lacag siisa ayaa ku xidhan dadkan laakiin dadka masaakiinta ah ee dalkan le 80% iyo in ka badan ahi waxaan war uma hayaan waana kuwa Soomaaliland ku dhisan tahay abaar baa wadanka ka taagan maanta in laga xishoodo bay ahayd in dadka siyaasad looga warramo waan ogahay inay nolosha ku xidhan tahay siyaasadda marnaba lagama tegayo siyaasad baa wax lagu kala hagaa siyaasad baa wax lagu wadaa markan saa u hadlayaan qalad loo fahmin oo aan loo arkin in leeyahay wax xaraan ma aha laakiin siyaasad aqli ku dhisan oo xilliyaysan oo marba halkay joogto iyo iswaafajinteedu wada loo baahan yahay in dadka lagala hadlo maaha imika haddaan idhaahdo kubadda mar baan ciyaaraya marna waan daawanaya marna waan ka sheekaynaya nolosha maxaa ii soo hadhay waxba dee saas un baynu noqonnay imika waar dadka qashinka iska gura ku dheh waar dadka amnigiina ilaashada ku dheh waar dadka iska ilaaliya ku dheh waxyaalaha wadankiina xuduudaha ka soo gelaya baylahdeenu siyaasadun maaha saaxiibayaal baylahda aynu leenahay siyaasad keliya maaha ummaddeeni wacyigelin bay u jabtay wax aan kharash inaga gelin bay u baaba'aysaa oo ay u dhimanaysaa waar dadka aynu wax u sheegno oo siyaasadana saaxiibayaal ka shaqeeyo oo waqtigeeda siiyo oo ku jira intiina weliba sida fiican uga shaqaysana waanu idinku ammaanaynaa laakiin aynu u soo jeedsano haddaynu waxbarashada iyo caafimaadka wacyigelintooda ka shaqayno oo aynu barnaamijyada caafimaadka aynu sii dayno tiifiyada madaxa bannaan kuwa dowladda iyo barnaamijyada waxbarashada kor u qaadno oo aynu dadkan idhaahno waar iskuullada u dira carruurta oo aynu dadkan idhaahno qashinka iska basriya oo aynu idhaahno waa xilli roobaadkiiyo sidan yeela oo aynu idhaahno biyaha sidan dhaha oo aynu hooyada uur kale iyo hooyada umusha wax u sheegno ummaddeenu way hagaagaysaa markaasaynu helaynaa dad hagaagsan laakiin intaa idinku sii kala fogeynaysaan ee afar qof ku farur xidhan tihiin oo aydan danna ku qabin waxna ka faa'iidin waxbaynu hagaagi maayaan axmedow sida aad imika aad wacyigelinta u fidinayso ma aad warbaahintaba uga fidiso si lamidaba suugaantaadana aad iyadana uga fidisaa waxaan doonaya inaan laakiin kala horreysiiyo suugaantaadu waa laba midi waa dee taa wacyigelinta iyo tii madadaalada ahayd iyo iyada lafteeda wacyigelinta ku jirta oo heesihii ka mid yihiin taa dib baan yar dhiganaya waxaa jirta laakiin mid aad caan ku tahay oo ah tii jacbarka ahayd waa maxay sababta aad jacbarka ugu baydheen niyahow waa su-aal muhiima horta inta aniga ogaalkaya abwaanada jacburka soomaalidu ay ku baratay way fara badan yihiin anigu waxaan garanayaayoo weliba jacburkii ugu horreeyaan dhegeystayna inuu ahaa aan filayaa wuxuu ahaa ninka la idhahdaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye dhoodaan waxaan fahmay in jacburku adigoo qofkii ka qoslinaya qosolku waa waxyaalaha aynu jecelnahay iyo farxaddu qofkii adoo ka qoslinaya baad fariintaadiina u gudbinaysaa dabadeetana fahamkiibaa ka dhowaanaya markan kale ee aad sida caadifadaysan ula hadlaysa ee wixii adiga ku shidayay inuu qasab kugula dareemo qofku aad doonayso ee aad doonayso inaad calooshiisa ka kalluumaysato qofkii iska faraxsan oo habiska u qoslaya ayaa message-kaagiina qaadanaya horta taasaan ku doortay haddaba ka soo gudub jiilka aad la nooshahay maxay ku qoslaan maxay jecel yihiin iyaduna meeshii taalla kuwan aad ku dhex jirteed la nooshahay ee kula da'da ee kula filka iyo kuwa dhashay iyo kuwa dhalayaan wax ay garan karaan oo ay fahmi karayaan oo weliba noloshoodina ku cindan oo la socda kaga qosli
deetana fariintaadana u raacay ujeedooyinka ama mabaadida saldhigga u ah ee ugu waaweyn ee igu dhaliyay waxaa ka mid ah waxaan arkay in dhaqankii meesha ka baxayo inteena joogtana imika oo aynu labadeena ugu horeyno inaguma duxista waa la isla garanayaa kolley dabadeetana waxaan isiri bal horta dee casriga iyo tiknolojiyadda iyo internetka iyo waxyaalahan maad u dhex martid markan dhameeyeen kaa qosliyeed qosashaanku odhanaya dee niyo balaag imika waxaasayno waxba meesha kumayna af soomaaligeenu u dhintay hadda soo maad fahmin marka meelahaasaa ugu mudan waa sababta aad u samaysay kiligtii jacaylka tusaale ahaan ha iyo dhowr kaloo lamid maxaad uga jeeday kiligta waynu isla garanaynaa dee waa kan ku hor yaala oo markaad waa fartii yaraydeen ma garanaysa maansadan yare kooban horta waxaan ka cudur daaranayaa in qaarkoodna ay yihiin qaar qaafiyadaysan oo macnaha xarafraacoodii wata qaarna ay yihiin qaar miisaankii uun leh oo shuruucdii maansada wata laakiin aan qaafiyad lahayn maadaama jacbur yihiin xarafkay doonaan gelayade oo adigoo la marayay imika ay sa kula tegi karto hadda insaa loo fahmaan jecelahay kiligtii jacaylku kuwii ugu horreeyay bay ka mid ahay in badan waa laga yaabaa dadku inay meelaha iyadoo laga sheegaya ama idaacadaha ama tviyada ay ku arkeen 2000 iyo waxaan qiyaasayaa 12 meelaha inay ahayd markan sameeyey waxay odhanaysaa nadis kaafiya iyo kaynaanka socodka iyo waayar kaashanaya iyo kombiyuutar wacan iyo kiligtii jacaylkaay keersarka oo dhaqaaqoo kaydinaya fayloo karaameeyey sayftoo ku hubsaday xusuustaay keyboard la yaabo ka dheereeya leyrhkaay kaadhkii dareenkaay kaashadii anteenkaay website kaalin qaadaay kaahi softwarekaay kambaniga u weyn iyo kaanon qaybihiis iyo kamarada qulubtaay kala mudan haweenkuye kabjarkii naftayda iyo technology koraayo Microsoft kalahayo cilmi kaashanaya iyo casri kaabideeday kalgacayl dilaayaa kambasiga samaysto kaybilada jaraaye ka dhaafkaaga daaro ka shamaysku qabana waa sambabada ay qalan oo wadnaha ay saran oo dhiiga sayrinaya iyo xaggan kala uu loo soo wareejiyay software qubaya ha taasi waa taa maansada kale ku xigtay isla sanadka gudihiisa markaan arkay dadkii soo dhaweeyeen ayaan iyadana sameeyay marketo baa la yiraahdaa bariyaha iyo sanadii ku reeb waxay nagu cusbaa baabuurtan aynu la soo degno yar ee guran ee faraha badan marketo baan markaa ka soo qaatay laakiin baabuur fara badan oo qaar kood laga yaabo dadka daawanaya inaanay maqalba ayaa meesha ku jirta waxay tiri marketo baro iyo sida seerif iyo jiib rinji lagala daaliya sida cagafta beeraha ama wiish kharaab iyo iska rogo cusub oo shaamboo la moodiyo Nissan ordaayo milix daabula iyo UD banjarayo taayiradu dhamaadeen Landrover daayo bas adaa ka muuqdheer inaan buu la hadlayaa moogti wuxuu yiri haykalkaaga inay yahay dadku uu ka yaabo waaraad la moodiyay 19ka daayo maqaadiir dhaqaaqday sar way qaaliyaa tahay Land Cruiser baa tahay taxi duulayaa tahay Mitsubishi baa tahay Volvo halis baa tahay waxa tahay Crown iyo Toyota iyo Mazda iyo baraadaha qulubtoo shookan qurxoonida loo dhareerinayay inta aanu ruux kale ka kaxaysan laamida ana dira walcaane gaarigaaga loo bugay geerishkayga maadhigi inantii oo isyar xarifinaysa wili aan dhageysanay baarkood tan wuxuu yiraahdaa dhayna qaali ama kaaster dheer iyo TD ma waayine anoo ka naxayaan LG-gaagan doorto buufi baan isla ahaa jiraad macaashtii haddii aad iswaashana gaari waay maaye jugeeyo ka siidaa kuwa hoonka tumaya iman baarkinkaaga furayaasha Kenya marka labadaasi kuwaas ay ahaayeen way wada socdeen 2013 ayaan mar kale curiyay maansa leeraa laptop kulli dadkeena daawanaya dad kan ku hor yaalay inuu yahay way garanayaan waa mar lagu ruran yahay iyo mar waxay tana mawaadiicdaas bay la mid tahay oo kama foga waxay odhanaysaa laptop nin haysta desktop ma doono intuu charger qaato marba fiish la tagiyo boorso uu ku riday iyo khan u waay maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo Facebook mashquul kama dhamaadee anigana sidaas muuqaaga jeerkan screen-ka soo dhiga kalgacayl saaqa waan paint gareeyaa Photoshop-ka mariyaa oo PowerPoint-ka iyo Excel kaba ku tuuraa aayahaygi baa tahay waan walwaalayayo jacayl baan daraada Samiiray fatahaya tiriiji karoonay mouse-kii qulubtay ma recycle binka jacaylkii ku tuurto format garooyo waxa tiri delete oo qulqul baad leedahay waxaan ka codsanaya restore gareeyo update si walaalay ubad iyo caruur badan aan print gareynay
maxaa tiri baabuurkaagan gaarigaagan loo buuy gaarigaagan loo beegay geerashkayga maadliga haa masar beeba mise waa baabuurka caadiga aan ka hadlayna dee maya inantii miyaynaan u heesayn okay iska hubsanay haa axmed sida aad u fahansan tahay in dadka lala hadlayo afkooda lagula hadlo haa ayaa haddana dhanka kale waxaa tahay qof odayaasha ku dhex jira runtii anigu aan ogahay way haddana saad la socoto jiilku isbedelaya oo odayaasheenii hore haa dee waqtigoodii cimrigoodii u dhammaanayaa meesha bay ka baxayaan inta badan waxaa bedelaya sanadadii u dambeeyey imika 10 sano u dambeeyeyba haa oo ilaa maanta lagu jiro haa dadkii ay dhaleen ama jiilkii ka dambeeyey haa ayaa ama cuqaashi ama salaadiintii bedelaya way labadaa jiil ee hore ee aan digitalka ku xidhnayn iyo teknolojiyadda haa iyo kuwa nimika bedelaya ee oday dhaqameedka ah ee haddana dhalinyarta haa sidee bay isula jaan qaadayaan oo aqoontii ula kala wareegayaan si ay bulshadii u hagaan horta fursad baad halkaa ay siisay wanaagsan 3-4 sannadood u dambeeyey Somaliland waxaa ka baxay dad waaweyn oo madax dhaqameed u badan oo guurti u badan oo odayaal u badan intooda badanna xilalkoodii oo ahaa hogaamintii bulshada waxaa la wareegay dad dhalinyara inankiisi ha noqdo Sultan Hebel baa dhintay inankiisi waa la wareegay Sultan Hebel baa dhintay inankiisi waa la wareegay waa run in ay yihiin kuwa ugu habboon ee bedeli lahaa horta maaha uun qofka inaad iska weerarto ama aad iska dhaliisho maaha ninkii wanaagsanaa ee waddankan soo dhisay ee dadka soo heshiisiiyey ee Somaliland hubka ka dhigay inankiisiina waa isagii uun horta waayo hadduu isagu xun yahay oo hubka naga dhigin ayuu da xumaan lahaa ninkii wanaagsanaa baa dhalay laakiin waa dhalinyar soo ma waxaynu jecel lahay inaynu tusno sidii ay aabayaasheen aabihii u garab taagnaayeen ay hubka dhigista ula sameynayeen ee nabadeynta ula sameynayeen ay dimuqraadiyadda ula unkayeen inaynu inaguna horta suldaanka dhalinyarta ah ee imika xilka la wareegay inaguna aynu u garab taaganahay suldaanka dhalinyarta ah waxaynu ku kaabaynaa taladeena waxaynu ku kaabaynaa maxaa la dhahdaa aragtideena waxaynu ku kaabaynaa cunfi la'aanteena iyo qabyaalad la'aanteena iyo xumaan la'aanteena waa suldaan reer Somaliland waa caaqil reer Somaliland waa madax dhaqameed reer Somaliland waxaynu kula talinaynaa in sidii aanu yani ugu milmin cunfiga siyaasadda iyo xumaanta siyaasadda ee waddanka hadduu xataa siyaasadda ama dhexdhexaadin ka gelayo ama wanaag ka samaynayo inuu yani noqdo isu soo dhaweeye aan kula dhashay iyo ku ka soo horjeedo iyo midna la safanin ee labadaba dhirbaaxa oo labadaba u ah madax dhaqameed oo labadaba isu soo dhaweeyo oo kuna ixtiraamo sharciga iyo qawaaniinta iyo golayaasha inoo yaala toodii oo ku dabaqo labadoodana warbaahintii aynu canaananaynay isku xirkooda iyo isu soo dhaweyntooda marka laga hadlayo xag dhaqan iyo xag tiknoolajiyadeed iyo xag aqooneedba oo kala warankii bulshada oo ah shaqadeennii ayay tahay warbaahintu inay qabato waxaan doonayaa inaan ku noqdo maasooyinkaagii way maasaan aad u jeclay baa jirto ka hadlaysa markaa iyadna nolosha Soomaalida ama nolosha aadamaha sideedaba way waano iyo wax sheega way oo mawduucan aynu ka hadlaynana soo hoosgelaysa way maasada baxnaano way waad mahadsantahay Ismaaciil baxnaan waxay ka mid tahay maansooyinka sidaad sheegayso nolosha bulshada ka hadlaya maadaamaan hadalkayga markii hore ku bilaabay inaan dadka ka mid ahaado oo aanan yani ka dheeraynin ee waxaan uga warramayaana aniga iga muuqdaan markasta waxaan jeclahay inaan halkaa taagnaado waaqaca bulshada haddana adigu ku dhex jirinood yani ka fog tahay kama warrami kartid tusaale ahaan Ismaaciil Cabdilaahi ubax anigu markaan aqaano ayaan bari karaa qof kale oo oran karaa ninkan Ismaaciil baa la yiraahdaa waa sidaa iyo sidaa waa caynka bulshadana markaan warkeeda hayo ayaan iyagana wax u sheegi karaa iyagana war intaan ka qaado ummadda kale la wadaagi karaa oo gaarsiin karaa halkay doonayeen haddii kale dee aanoo tay xidhan muraayadda soo fadhiisto waxaan doonaa sheegun bay noqonaysaa sidaas si lamidaba bulshada nolosheeda markaad ku dhex jirto waxay tabayso iyo waxa dhibaya iyo intaba aad u ogaan karaysaa waxaan maansadan baxnaano 2014 baan qoray dadku ma jeclinay ii qaataan abwaan
waayo anigu abwaan macna ahaan wax kale aan u aqaanaayo yacni allah naxariista xaaji cabdiwaraab oo kale iyo baan dee odhan karaa ama dhoodaan oo kale iyo hadraawi iyo ayaan odhan karaa waa abwaano laakiin aniga iyo lodkayga hal abuuraan ku sheegi karaa weliba anigu hal abuur rasmiyana meehiyo qof sugaanta jecel umaan isoo arkaa laakiin haddana dee maxaa la yidhi kirishbo istaawiyey karti yeeldharaan inuu koro dan baa tidhi kursiga iyo shukaantoo laysu kaadin maaye inaan dee haddana intan odhan karaya idhaahdo waa qasab baxnaana waxay tidhi waxaan birayaa su-aal jawaab baan baarayaa anoo beydgaab ah baan baraarujin fidinayaa waxaan isku beegayaa baxnaaniya waa bukaan intay igu baaqan layd ha baahdo odhaahdayo dabayshu ha buufiseetiyo burburan oo biriiq iyo wada jajaba bineeyeye waxaan ku idhi jacaylkiiyaa bahdilay maxaa bi'iyoo kharibay goormay baholyowga ruux ka jara baadkiiyo cuntada intay bedeleen lodkani hasaawo bilaash ku yimi habdhaqanka xataa hasaawehena isbedelay oo inankiiyo inantu markay sheekaysanayaan ugu yaraan halkaa iyo halkaa intay soo kala istaagaan baa iyagoo geedka midna xagga shegto iminkana iyadoo gorodda la isgeliyey baad arkaysaa hadmuu dhaqankii burburay hiduhu boog yeeshay oo runtiina la baalmariyo wanaag lagu baana iyo bogaadin wixii lahaa hagaha dadku beegsadiyey bidhaanta horteenna taal bulshada ma kafeynaysaa markaan been laga hadlayn bal aan iswaraysanee kumaa tabay baylaha qaran bilaala ninkee dhaqdhaqay wax buuranay haba hadhee intuu bishlay aayatiin qofkee firi beeray weli su-aaluhu waa badoo tixdaan barax uga dhigee haddaan beyd kala furfuro dhaliil badataan arkoo wax badan baydaan dhugane hadraawiintuu ku baray miyaydaan bogan dad yahow gaariya buwaagtu qoray badweyntiiyo maansadii miyaad erey kala baxdeen intuu ganay baaqay ee gadhliya qayskugu burqaday boon iyo kayd iyo cashuur bahdii culimmada fankiiyo baashiyo dhoodaanka weyn intii halabuur bilaa buruud iyo magac lahaa ilaa kuwa beegsaday intay ku yihiin barbarad buushiga firi moodaya iyo baraariga aan ku jiro miyaydaan beyd ka hayn intaad gebi bowsateen burjiga lumay ee dhintiya baleeg xasan maxamedow bulshada waaqlaha tagtee buskana moodaysa doog boqoolkooduna ka dilay waxay uga soo baxeen halkii ay taagnaayeen bay ka yimaadeen halkan ay yimaadeenna waxa uga khayr badnayd halkoodii intaad xumo beerateen weliba baaqbaaqateen sun iyo booq qooshateen barwaaqa malaysate alleylehe waad ba'deen haddaan laga baydhin oo abwaanada baaqayiyo bilaash weeyaan xamsow tixdan buunbuuniye baadidu u kasbay luntaye muxuu baadi dooni tari qof u bareerayay inuu isagu isdilo haddaad wuu ka joojistiraa dee way adag tahay markaa in dariiqaa laga leexday ku talinaysaa haddaan bugcad kale u galo barbaarta tahriibaysee ka tegay burco iyo berbera hargeysada baylahdee haldeeqow waa baryaba baroortu ka yeedhaysiiyo booramo oon ruux ku hadhin bahdii sool taalle iyo ilaa babicii sanaag bariga ilamaa galbeed ban iyo hawd iyo bannaan ilaa buuralayda guban ogow babisaa hesho busaarad la sheegay iyo colaada kamay baxsane saluug ku ballaadhay iyo waxaase xariirka baday caalwaaga ku baahay oo wakaa beledkii madhaya haddaynaan baajin karin maxaan burmadow samayn qayrkeen oo tooda bilay inagu biligtii dhacdaba miyaynu baroorannaa walee tacabkeenba iyo bilaash weeyaan tuxdiye baadidu uu kasbay luntaye muxuu baadi dooni tari bulshada aan xeer ku celin ee aan diinteeda bilan ka baydha waxay tiraa bilaahi jidkeeda marin kolley bahalkaa cunee hadduu nuurkii bakhtiyo ilayska xawaasku bo'o xayadu boodh yeelato damiirku xumaan u bo'o runtana aad baal martaan jeclaataan baadilkoo baryada eebbaha nacdaan miyaan ballantii jannada balaaya ka soo sokayn cadaabtuna buuxsamayn rabbigu haynala baxsado haddaad ku bogsoonaysaan 1 iyo 100 haro abiimiya halis kuu galo murtida kugu baashiro dantooda ku baylahdee anoon filanaynin boog inuu dhir ka baajiyo buraanburka aan wadana bulshada dhugatay fahmaan habeenkii oo bartagay badaa isnin roorayo baqiya tabashada jirtiyo bi'iina ka dhiidhiyo waxaan ahay baaqaye su-aashii bilowga hore haddii aan badiyo oon weliba kaga baxa tixdii aan kuu balballaadhiye badiyo webikeed cabtaan bartaad u socdaalaysaan ban iyo kayn waa midkee maxaa dhari kuu bislaa baq iyo dhaykee macaan badbaadada aan rabnee labada daarood bishiyo maxay baahideennu tahay xaggay barakadu jirtaa burburi ereyada burburi dheereeyow hoosu baadh jidhiidh iyo budada eeg saleebaan baasha mari filkeenna aan beegsanee baraaruga oo halgama runtana isku biiriyo wuxuu ballankeennu yahay dantoo loo baratamiye qabyada in la baylah tiro anoon hadalkayga badin baryada aan ku soo xidhee
adaa boqore allow ifkoodna baraarisiya barwaaqiya guulna sii nabaal mari halista oo rabbow beledkiya dadkaba gargaarkaagii bilaa ku baahi dhammaantayo adaan baahane macbuud adduunku markuu burburo naxariista ballaadhan iyo nagu beeg jannadaada bilan aamiin waxnaana saasay nagaga dhantay aamiin ya allah ku noqosho male aad iyo aad dhanka heesahan doonayna nu gudbo way 2 heesood baan doonayna soo qaato way oon aad u jeclahay way mid waa qandaraas way oo waxa qaata Yurub Kenya way midna waa qalbiga xagashada ka dah way oo waxa qaada Axmed Arshi way qandaraas baan ku horeeyo way haddaan qalin iyo waraaq la galo qol madow habeen qalbigu wuxuu muhanaya inaan magacaaga qoro maxaad qalin kala doonaysaa qol madow bay dadku isweydiiyaan horta Ismaaciil oo su'aasha dad badan bay weydiiyaan meel madow waxba laguma qoro bay ka oranayaan waan ogahay inaan meel madow waxba lagu qorin qof kasta anagu garanaya laakiin duruufta hadday kalifto lagu qori karaa haddaba imika qoris iyo qoris la'aan waxaynu ka hadlaynaa maahaba heesta waxay ku bilaabmaysaa haddaan macnaha meel aan waxbaba lagu qori karin anoo jooga ayay duruufta jacaylkaagu igu khasbaysaa inaan muhdo inaan magacaagii qorade ila waan qorayaa maahe meel aan wax ku qorano ma joogo haddana wataa jacaylkii igu kalifayo inaan islaam ma qortaa magacii fanaanada aan aaminsanahay lodkan imanka jooga heesa kolley qayrkeed way u bilan tahay xagga codka markaan idhaahdo Yurub Maxamed Cabdi waa xidig runtii fanku jaranjarooyin buu soo maray oo la isu soo dhiibayo qofba qof uu soo dhiibayo fanaaniinteennii waaweynada hablaha ahayd allah u naxariistay Khadra Daahir intooda joogtana ilaahay sharaf iyo karaamo iyo ciise ku noolay intooda dhimatana ilaahay u naxariistay Yurub waa xidigtii cahdigan taa macnaheedu ma aha inaan hablaha kale ee heesa yani leeyahay waxba meesha kuma haysaan 100 hablood oo iyada ka cod macaan baa jiro qaarkood aanay soo gaarin ba horta taa la ogaado oo laga yaabo inay muxuu ahaayay fanka fursadda Yurub ka heshay aanay kaba helin laakiin intooda muuqata taan waxaan isleeyahay iyaga laftoodu inaan cidina ka masuul karin Yurub inay tahay qofka ugu cod macaan uguna fanaansan heesta si mala awaala baan u qoray dabadeetana social media ayaan ku baahiyey waxay la soo hadlay xildhibaan Xasan Dhuxul imika xildhibaana waqtigaan ahaa gudoomiyaha koox faneedka xidigaha geeska oo markaa Yurub Maxamed Cabdi ay wada joogeen dabadeetana wuxuu igu dhiniyo heesta at Facebook ku soo qortay Yurub baa codsatay inay qaado waxaan ku Yurub anaa toosh ku diiday in heesii qaadee maxaan ka qabaa dabeetana subaxnimadii waan ballanay si aan isugu nimid heestii waan isla eegnay Xasan Dhuxul baa laxankii saaray dabeetana qandaraas sidii bay ku soo baxday waxay markaa oranaysaa haddaan qalin iyo waraaq la galo qol madow habeen qalbigu wuxuu muhanayaa inaan magacaaga qoro in badan waan qarinayay anigu waan kugu qanco duuduub kugu qaatay oo qudhaydaada xukumaha warkayguna waa qiso waxaan qandaraasayaa nolosha qaybaha hadhee inaan qoys kula noqdiyo miyaan u qalmaa xubbiga waa su'aal beedka labaad ayay Yurub oranaysaa haddaan kula qaadan lahaa nolosha kula qaybsan lahaa qudhaadu waxay rabtaan qumaati u yeeli lahaa macnaha nolosha haddaan adiga kula qaadan lahaa kula qaybsan lahaa qudhaadu waxay rabtaan qumaati u yeeli lahaa dhankaaguna waa qabye qiimee waxaan doonayo qalqaalo aroos mugliyo qorshee farxaddayda guud warkayguna waa qiso waxaan qandaraasayaa nolosha qaybaha hadhee inaan qoys kula noqdiyo miyaan u qalmaa xubbiga heesta kale waxa qaada ninka la yiraahdo Axmed Caarshe qalbiga xagashada ka daa ruuxantii qalbiga meel xigta ha kulli qalbi waa afxariba horta wadnahaynu u naqaana marka kelmadda carabiga halkan naga dhigtay wadnihaynu soo dul istaagno waxa jira wadna macnawiya iyo wadnahan aynu garanayno imika inan aad jeceshahay adiga Ismaaciil oo walaal ku leedahay war tag haday ku tiraa erey shoora waa kugu soo noqday Soomaali shoor bay tiraa qalbi xagashadu waa taasoo kortay hebel waan ka qalbi jabay ama heblaayo waan ka qalbi jabay Soomaad maqal qalbigan jabaa kan maaha
waa qalbiga macnawiga ah ee nagu jira ma fahanti ama niyadda ama kasha waxa doonta dheh markaa wuxuu yidhi qisaasta ka reeb cishqiga qofnaba kama feejigtee inaad wax jeclaato miyaad qorshaysataa mise wuu kugu dhashaawo wuu kugu dhalanaya unde markaa kama feejignaan kartid aniga weligay jacayl laguma dhici karo ma odhan kartid kama feejigan kartid waa wax saacaddu doona iman kara macnaha inaan ku cawriyo dee ma qorshayn karo inaad cawridana ma qorshayn kartid waa saasoo kale dabeetana wuxuu yidhi qisaasta kar macnaha waa qafladan un dadka ku dhacaysa adigana waa kugu dhici karaa imaad ilaaha ka yaabtid ayuu leeyahay odaad iga daysid sidan qisaasta ka reeb cishqiga qofnaba kama feejigtee qoraalka adoo ogsoon qabiixa ka daa xubbiga ha qodin booraan hadimo dadkana lama quursadee nolosha ila qaado oo ka qaad jamashada xumaha ha gelin qodobada nabsiga jacaylkuna yuu qardumin qalbiga xagashada ka daa ha qadin ruuxii ku jecel waa beydkii labaad ha qadin ruuxii ku jecel nacayb ha u qiil samayn runtana qari ha isku odhan qayrkaa adigoo la siman qabiyo kibriyo ku lumin naanaysna ha qaadan oo wargeysyadu yay ku qorin qorshaha guurkana daryeel ha gelin qodobada nabsiga jacaylkuna yuu qardumin qalbiga xagashada ka daa salaam axmedow muxuu yahay qorshahaaga mustaqbalka dhanka warbaahinta qorshahayga mustaqbalka dhanka warbaahintu intii karaankayga horta inaan sii wado inaan bulshadayda uga adeego weliba kaalinta wacyigelinta ee ku salaysan gaar ahaan caafimaadka waxaan aad ugu hanweynahay in warbaahinta ay ka soo bixi doonaan dad jecel inay uga waramaan bulshada yacni kobcinta adeegyada caafimaadka marka caafimaadka laga hadlayo qof kastaa waxa laga yaabaa inuu is yidhaahdo dowladdu kaalinteedii dowladdu waa innaga horta markaba yaanay kugu soo dhicinuun iyadu iyaga ka qaad fariintoo bulshada gaadhsii iyaga ku noqo waxaad tidhahdaa tuule heblaayo xanaana ka maqan maxaad u geyn weydeen bal hadeeg iyaga ku noqo waxaad tidhaahdaa halkaa jadaaca ka dilaacday maxaa wax looga qaban waayey samaad fahmin inta aasaasiga ah ee saxda ana iyadoo aynu adeegsanayno maanta xirfadlayaal caafimaado fara badan baa jaamacadaha somalilan ka soo baxay dibadday qaar inooga soo baxeen way buuxaan dadkii mihnadlihii caafimaadkuna shaqo ma waayin wariyihii caafimaadkuna shaqo ma waayin sababaynu markaa angal yar isugu ururino oo aynu wax keliya uga shaqaynaa inooma soo bixin baylahda caafimaadka iyo waxbarashada wacyigelinteedu weliba gaar ahaan caafimaadkiio noloshiihi waa baylaha inoo wada taalla uma taalo xisbiyo uma taalo xukuumad keliya uma taalo wasaaradda caafimaadka uma taalo saxaafadoo keliya laakiin innagaa ah tiirkii lagu duulayey waa dadkeenna aynu jihayno oo dadkeenna aynu hagno oo dadkeenna xaqooda xataa dowladda aan uga soo dhicinna dee ilan innagaa mas-uuliyaddoodii qaadnaye markaa qorshahayga mustaqbalku horta waan muddo sii wadayaa iminka lafteedana waxbarashada caafimaadka ayaaban dee muxuu ahaye bilow ku hayoon isleeyahay bal insha allahu horta wax ka korobsatid allah ku dhib yarayo si kastoo axmed u jeclaan lahaa inaan ku haysto kuma sii haysan kara waqtiga awgeed marka aad iyo aad baan u mahadsan tahay nagala soo qayb gashay axmed cismaan batuun barnaamijka codka ubax idinkana waxaan leenahay qalbiga xagashada ka daaya aad iyo aad baan u salaamayaa guda iyo dibadba bulshada somalilan iyo bulshada mandaqada bariga afrika ku nool ee soomaalida ah si gaara waxaan jeclahay inaan ugaga tago qurba joogta somalilan runtii waa dad qalbi wanaagsan somalilan oo dhaqaalaheeda aynu garanayno inta ugu badan waxaan aaminsanahay anuu shakhsiyan inay yihiin dadka ku leh yacni saamaynta dhaqaale ee ugu weyn somalilan dadka ku leh dib u dhiska dalka waxaan ka cudur daaranayaa wararka ay warbaahintayadu soo gudbiso ee foolxumada iyo cunfiga iyo isqaqabsiga iyo xanguruufashooyinka siyaasadeed ee halkan ka jira ee aan weliba sii ridnayn ku salaysan ha u qaadanina wax somalilan dhibaataynaya ha u qaadanina wax yacni qarankiina duminaya ha u qaadanina wax tacabkiinii baabiinaya waa in aan hubo in laga heshiinayo waa inaan ogahay in ay dhammaanayso run ahaana warbaahinta waxaan mar kale ugu celinaya inaynaan ummadeenna niyad jabinin inaynaan ummadeenna qalbiga ka xaganin inaynaan ummadeenna yacni kala fogeynin laysu soo dhoweeyo sidii dhaqankeennu ahaana arrimaha siyaasiga ah ee iminka taagan ee
muranadooda iyo ay taagan yihiin ee loo badan yahay weliba in arrin sharci tahay waxaan ogahay 100% in lagu heshiinayo ilaahay damkiisa waana dhaqanka Somaliland qurba joogta fariintaasaan u dirayaa saxaafadda waan la hadlay xukuumadda waan la hadlay waana iga dhantay adna waad mahadsantahay Ismaaciil aad baad mahadsantahay Axmed laa ku anfaco cid kasta aad iyo aad baad mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh